shirkadda howlaha dhismaha qandaraasayaasha guud ee Neymer General Construction oo 3 sano ugu dambeysay gacanta ku haysay dhismaha cusbitaalka darajada koobaad ee Shinile ayaa hadda soo gabagabaysay isla markaasina ku wareejisay xafiiska caafimaadka heer deegaan dhismahaasi oo si tayo leh loo dhisay isla markaasina qaybo kala duwan ka kooban ayaa waxa ay sheegeen la taliyaasha hubinaya dhismaha inuu waafaqsan yahay naqshadii loogu talagalay sida uu nooga warbixinayo maareeyaha shirkadda Neymer ee gacanta ku haysay dhismahan Engineer Idris. Bismillahir Rahmanir Rahim. aad baad u mahadsantahay mashruucani kulliba 6 bilood ka hor baan dhameynay hadda uu dhameystiray wax ka maqan ma jiro adeegii loogu talagalayna uu laabi karaa lamastaximka xarig jarkii baan u taaganahay oo diyaar garowgii baan ku jiraa ana wareejinta waan wareejinay almost shalay baan wareejinay oo shalay bisha 7 ahayd baan wareejinay marka mashruucani hadda diyaar buu yahay inuu adeegii bixiyo qalabayntu qalabeysan intii boqolkiiba konton horta ala qalabeeyay inkasta qalabayn badan u dhiman tahay uu baahan yahay qalabayntii ayna ku jiraan xafiiskii heer deegaan iyo maareeyihii loogu talagalay si oogii loo magacaabay xafiiska hospitaalka ee hawsha ay ku jiraan iyagu way wadaan gudaha dad gashid waad arki kartaan qalabayntiisii wixii sariirihii la dhigay wixii kale almost way adigu qalabeysan yahay shaqana uu bilaabi karaa hadda diyaar hadda waxa ka maqan kaliya kooraankii oo heshiiskii la galay oo transformerkii loo soo gelinayo oo xafiiskii ay galeen qoladii elpa mabratelka ahayd marka intaan buu sugayaa bas inta hadii loo soo gasho adeeg kasta oo nooc kasta uu bixin karaa tasfiiyada ayaa disteen mashaariicda kale ee gobolka ka socota kalmid buu ka bal mashaariicda xagee marayaan wadadii hore ilaa halkaas ku filaysan mashaariicdii anagu aan hayn gacmaha ku haynay inteedii badan waan dhameynay hal mashruuc oo imika gobol ka socdo wadada xoore xaarisa ayaa nagu hadhay taasna waqtiyadii roobkii darteed bay u taagneed roobkii iyo kadib kolkan ka soo baxnay miisaaniyad bay u taagneed hadda laakiin miisaaniyadii baa loo diyaariyay waa la sii deynaa boqolkiiba 40 iyadan laftigeeda oo dhameystiran tahay hadda kolka miisaaniyada la sii daayana iyadana waan ku boobsiinayna insha Allah inaan waqtigii loogu talagalay ku dhameeyna ayaan rajeynayna dhismahan oo ka kooban qaybo fara badan ayaa xafiiska caafimaadkuna hadda ku hawlan yahay qalabayntiisii isla markaasina waxa wax weyn ka tari doona baahidii adeega caafimaadka Shinile ay u qabtay waxaana xafiisku hadda uu sameeyay qalabayntii iyo sidoo kale hawlihii loogu talagalay qaar kamid ah dadka fursadaha shaqo ka helay intii uu dhismahan socday ayaa nooga warbixiyay habsami u socodka shirkadda Neymer iyo sida ay hawshan u soo gabagabeeyeen magacayga waxaa la yiraahdaa Khadiir Cabdi Abadiid waxaan ahay Neymer shirkadda Neymer ee guryaha maamulaha guud iyo managerka ay ka warbixisay u dhisay hospitaalka si tayo laan u dhisnay si wanaagsan baan u dhisnay dhaxal baan ummadii uga tagnay hooyada uur kale ubadka yaryar waxa liya wixii ma aragtay bukaanka oo dhan meesha waa laga helayaa waka intii aan hawsha ku jirnay dhismaha waxa ka heshay ilaa iyo 78 qof oo shaqaale hoosaaneed iyo kuuliba ha noqday iyo injineeradii kale dhisayay waxa soo dhamma hadii la isku geeyo 100 way ku dhawaanayeen waka dadweynaha waxaan ugu baaqayaa in ay hantidooda ay xajistaan ay si fiican ugu macaamiloodaan ay ilaashadaan yaan ugu baaqayaa madaxweynaha iyagana waan mahadnaqayaa isbitaalkan aad baan ugu bognay waa isbitaal dhameystiran wax badan ka tari doona bulshada Shinile muddo badan aan sugaynay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa qalabayntiisu qolalkii jiifka roomkii qolalka wax kasta oo dhameystiran yihiin وما شاء الله ويان أديات بنا وجوبنا أديات بنا نسود ويننا تذكر دسينا الله كجزاء سيو حكومتنا حاجة كسي ودان لنا
horumar badan oo kalena waan ka filanaynaa guud ahaan hospitalkan oo markii ugu horeysay laga hirgeliyay magaalada Shinile ayaa wax weyn ka tari doona baahidii caafimaad darrada ka haysata magaalada Shinile kharashaad fara badan ay ku bixin jireen bulshada ku dhaqan gobolka City isla markaasina aanan haysan meel ay ku daweystaan dhaawacooda waxaana ay aad uga mahad celinayaan madaxweynaha deegaanka oo dhagax dhigay isagoo la filayo inuu maalmahan uu xadhiga ka jari doono isla markaasina uu bilaabi doono adeegii loogu talagalay fadlan haddaad nagu cusub tahay like iyo subscribe ha naga hilmaamin